بسم الله الرحمن الرحيم qodobka waxaan kaga sheekeynaynaa saddex terminology oo runtii muhiima oo ay tahay inaan maskaxda ku hayno waxa loo yaqaanaa three primary goal of network security waxa loo kala yaqaanaa saddexdan qodob confidentiality integrity and availability saddexdan terminology si deeply aan u geli doonaa laakiin aan marka koobaad saddexda ku kala anfaansiiyo xogtaadu inay noqoto confidential oo ay qarsoonaato oo ay ku ilaashanaato waa confidential inaan xogtaadii wax laga bedelo aad ka ilaalisid waxa loo yaqaan integrity in xogtaadii ay noqon karto mid 24 saacadood ba la heli karo waxa loo yaqaan availability kan ku horeeya markaasi confidentiality waxa weeyaan data confidentiality implies waxay keensataa keeping data private in xogtaadu ku ahaato shakhsiyan oo adiga waxa laabtaada ku jira no one knows it og haba yaratay ma jirto this privacy could contain physical and logical restriction access waxa uu noqon karaa keensadaa physical ahaan iyo logic ahaanba inuu restrict gareeyo sensitive data-daadii uu ku ilaaliyo ama inuu ku encrypt gareeyo traffic-gaaga network dhex maray confidentiality marka wuxuu ilaaliyaa xogtaadina private ku ahaato marka lagu leeyahay tusaale ahaan waxyaabahaasi waa waxyaaba privacy-gayga laptop-kaaga idib lagu yiri it is my personal PC baad leedahay waa personal PC-gayga xogtaydii shakhsiyan ka ahayd baan anu ku haystaa laptop-kayga therefore personal PC-gaas wuxuu keensanayaa confidentiality-ga haddii laptop-kaaga la helo ka war waxa la helayaa sawiradaadii waxa la helayaa Gmail-kaagii waxa la helayaa Facebook-gaaga waxa la helayaa xogtaada adiga ku kaydsanaa transactions-kaaga isticmaalaysa waxyaabo oo dhan ba la helay haddaba waxaan u baahanahay makaaniyad baa jira haddaba la isticmaalo si xogtaada loo kaydi loo ilaaliyo confidentiality-geeda waxa la isticmaalaa markaasi using network security mechanisms baa la isticmaalaa maxaa kamid ah firewall-ku sidiisaba waxa weeyaan hadduu kan yahay internetka hortiisa ayaa waxa la dhigaa firewall qaybaha dambe kaga hadli doona kadibna network-geeni baa halkan imanaya marka network-geeni baa halkan imanaya PC-yadeeni haddayna astaanta mar kasta aragno astaanta waxaynu qaadanaa switch router-geeni baa halkan imanaya switch-geeni baa halkan imanaya network-geeni baa marka halkan imanaya firewall-ku markaasi waa difaaca guud firewall-ka shaqadiisa waxa qabta sidoo kale router-rada qaarkood oo wax lagu configure gareeyo wax loo yaqaan access control list muxuu qabtaa access control list oo loo soo gaabiyay ACE wuxuu shaqadiisu yahay sideedaba haddii aad rabtid inaad for example two networks hadaysatid network-gaasi haddaad doonaysid inaad network-gaagaasi aad ogolaatid qaybna aad diidaysid waxaad sameynaysaa wax loo yaqaano policy loo yaqaano access control waxaad leedahay tusaale ahaan any data comes from aan idhaahdo PC-ga soo qaato iyo PC bartaa yaala kanina uu router-kayga yahay xagganina uu yahay tusaale ahaan server-kayga waxaan leeyahay tusaale ahaan kani waa 10.1.1.1 kanina waxaad ka soo qaadaa waa 20.1.1.1 waa IP-giisa kaasi yasiinan IP address kaga hadal mar dhow ka hadli doona waxaynu ku router-keenan ku configure gareynaynaa policy loo yaqaan access control waxaan leenahay markaasi any traffic comes from this PC allow others denied marka waxaynu kala baranaynaa wax loo yaqaan deny iyo permit ogolo wax kasta oo kaaga yimaada 10.1.1 wax kasta oo kaaga yimaada otherska oo 20 ku jira xataa waxaan leenahay denied garee marka waa access list control marka habkaas lagu maamulaa to prevent unauthorized access in the network si looga hortago network resources-kaaga waxyaaba ka imanaya okay required appreciating confidentiality such as password and required appropriate confidential such as user and password key to access your network resources waxa loo baahan yahay in
la ilaaliyo credentialskaaga userskaaga iyo passwordkaaga la ilaaliyo waxaa loo baahan yahay in encrypted data encrypt datadaada inay noqoto encrypted in la ilaaliyo traffic kaasi oo uu no one aanu datadaadaasi haddii uu qabto oo attacker tusaale ahaan qabto inuu una awoodi karin inuu ku sameeyo ciphering in xogtaadii banaanka soo dhigi karo waxaa loo yaqaanaa markaasi encrypted traffic in xogtaadii aada dahsoonaysid marka waxaa jira wax loo yaqaana IPsec marka la hadli doona IP security oo inta badan nooc encryption isticmaalo MD5 isticmaali kara hashim algorithms isticmaali doona chapterkan qaybta dambe kaga sheekeyn doona qaybo kamid ah confidential can be provided by encryption confidentiality wuxuu sidoo kale qabtaa wax loo yaqaano encryption encryption ku laba qaybood buu kala baxaa symmetric encryption iyo asymmetric encryption maxay kala yihiin waxa weeyaan midna key buu leeyahay keygaas la raaciyo data midna key public ayuu sameeysanaya aan labada kala barano markaas symmetric hadaynu maqalno asymmetric waa encryption apply gareeya ama implies that the same key is used by both sender and receiver to encrypt or decrypt data or packet data haddaan maqalno iyo packet haddaan maqalno sometimes waa isku mid laakiin packetka ka yar ballaaran marka packetku wuxuu noqon karaa voice iyo data iyo wax daatadii adoo dhan xogtii dhan buu noqon karaa laakiin data sometimes waxa la oran karaa waa one form of xog oo hal nooc oo information ay noqon karto marka symmetric markaasi wuxuu imply gareeyaa inuu niri senderka iyo userku in halkii wada isticmaalaan waxaa jira markaasi symmetric encryption algorithm include follow waxa ku jira wax loo yaqaan data encryption standard DES baa loo soo gaabiyaa iyo data encryption standard oo terrible ah saddexa labadaas inta badan waa nooc ka mid ah xogta halkan ku sharxi doona iyo ACE oo loo soo gaabiyo advanced encryption standard oo ah isna hab inta badan wifi-yadu caan ku ah kana inta badan data-du caan ku yahay marka muxuu yahay symmetric this PC wanted to communicate that server haduu rabo inuu serverka la xidhiidho ugu horeyn wuxuu sameysanayaa wax loo yaqaano wuxuu sameysanayaa shared key ayuu helaya shared key aan idhaahdo horta marka koobaad shared key intaanu helin data encrypted with the sharing key ayuu dirayaa wuxuu ku request gareynaya xogtiisa isagoo datadaasi encrypt gareynaya keygiisina raacsanaya within shared keygiina uu ku jira keygii isagoo la socda ayuu request diraya datadii markaasi datadii buu oo encrypt gareysan ayuu u diraya aan idhaahdo yaan order request buu diraya aan idhaahdo datadii encrypt gareysan buu diraya furihiina wadada markuu kan helo xogtii furihii uu haystaa uu decrypt gareynaya kabacdi wuxuu sameynayaa isaguna sidoo kale data encrypted with a shared key datadii oo ku jirta ayuu mar labaad soo diray marka markasta oo session dhaco xog la isweydaarsada session 1 kii gaara la isticmaalaya markasta oo session kala dhaco kii gaara la isticmaalaya kale marka xogtii iyo furihii way wada socdaan symmetric laakiin asymmetric hadaan fiirsan asymmetric wuxuu noqonayaa xogtii labay kala noqonayaan marka isaga symmetric waxa jira wax loo yaqaan certificate authority wax loo yaqaan CA ayaa create gareynaya furaha PC markuu serverkii la xidhiidhayo request marka koobaad u diranaya soo helo wax loo yaqaano with digital certificate serverkaas uu diranaya number 1 serverkii digital certificate kii uu soo saxeexaya waxaana noqonaysa xogtaasi xog kaydsan then serverku wuxuu ku soo daray wax loo yaqaan public key ayuu ku soo daraya si uu ugala soo dhaxbaxayo digital certificate then this PC wuxuu noqonayaa markaasi number 4 weeyaan the client wuxuu generate gareynayaa session key isagoo encrypted data with server 1 public key isagoo isticmaalaya server key public keys then the client session key encrypted with server 1 public key xogtii marka halkan dhex maraysa isagoo public key wad public key maadaama wato xogtu encrypted tahay yaa decrypt gareynaya yaa xogtii dib u celinaya encrypted iyo decrypted waxa weeyaan tusaale ahaan waxaan haysanaa information way xidhan tahay tusaale ahaan fariin xidhan then
iyo in fariinteenii la furi karo in fariinteenii la furi karo ee open noqon karto. kani markaas waa encrypted, kana waa decrypted si kooban. markaas symmetric iyo symmetric maxay ku kala duwan yihiin? waxay ku kala duwan yihiin marka koobaad waxay wadaagaan horta key baa la wada generate garaynaya. keygu symmetric wuxuu ku dhex jira datada symmetric, laakiin public keygi ayaa la sameynaya isaga asymmetric oo waxaa la sameynaya kabacdi marka session ku dhaco ee shahaadada la soo saxeexo ayaa la sameynaya. marka waa asymmetric ayaa more complicated